السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan kula wadaagayaa qiso cajiib ah oo dhacday. Qisadu waxay ahayd sidatan. Waxaa jiray wadaad indhoola ah. Wuxuu ahaa mid caabid Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku xidhaya. Wuxuu ahaa mid salaad kasta oo qabata masaajidka aada. Maalintii dambe ayaa wuxuu aaday waqti habeen ah oo mugdiguna aad u daran yahay masaajidka iyo gurigiisa waxa ka dhex qodnaa god. isagu sama ogeyn. odaygii isagoo xagga godka u sii socda, qof ayaa u qeyriyay wuxuu ku yiri ka joogso adeer, halkan hortaada god ayaa ah. markaasuu wuxuu ku yiri maandhow, adigu yaad ahayd? isku kay sheeg ihag oo masaajidkeygee. isku kay sheeg maandhow. markaasuu wuxuu ku yiri aniga kuu sheegi doona haybtayda oo dhammaystiran ee waxba ha walwalin. inankee masaajidka haye waa la socday. waxay socdaanba waxay tageen masaajidkii. markaasuu wuxuu yiri maandhow, ilaahay khayra ku siiyee, ma doonayo inaan ku sii daayo ilaa sukay sheegtid. wuxuu ku yiri qofkii haye waan sukaa sheegayaa, laakiin waxay kula noqon doontaa haybtayda hayb cajiib ah ayay kula noqon doontaa. wuxuu yiri haye sukay sheeg. wuxuu yiri anigu waxaan ahay ibliis. odaygii wuxuu yiri maxaa tiri iigu celi? wuxuu yiri anigu waxaan ahay ibliis. acuudu billaah, ma adiga ayaa ibliis ah? haa. oo maxaad ii keentay masaajidka? sheekhi su'aalo badan ayuu maskaxda iska weydiiyey. wuxuuna yiri sabab sidee ku timi inuu ibliis ku keeno masaajidka uu god qodan uu kaa qabto? wuxuu yiri aniga kuu jawaabaya miskiin yahow. aniga wuxuu yiri haddii aad godka ku dhex dhacdid adigoo masaajidka u soo socda, niyadaaduna masaajidka ay ku xidhan tahay, haddaad godka ku dhacdid waxaa tahay ahlul janno. aniguna ma rabo in khaatumadaadu ay wanaagsanaato, khaatumadaadu inay wanaag ku dambayso aniguna ma rabo. wuxuu yiri orado masaajidka kale salaada xidho, aniga ka daba imaan doonay. subhanallah, miyaadan ogeyn waxyaalaha wanaag qaarkood inuu shaydaanku ku sixi karo isagoo raba inuu ku dago oo kaga faa'iideysto wanaagaas? nacuudu billaah. waxaan kaa codsanayaa inaad qisadan gaarsiisid walaalaha kale muslimiinta. waadna mahadsan tahay.